kulantu waxaan wanaagsan daawada ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada aan ku heen waxa ka mid noqon doona gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan oo si degdeg ah u dalbaday in tallaabo laga qaado taliyayaasha booliiska ee nisa ee magaalada Beledweyne kadib qaraxidii gilgilaalkaas wuxuu ku eedeeyay inuu ku fashilmeen ammaanka magaaladaasi Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waa daawo doontaana qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona waxa ka jira in al-shabaab ay qorsheeyeen weerar kala duwan ay ka fulaan garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho warar ka soo baxay al-shabaab arintaas looga hadlayo bayaankaasi iyo qorshaha ay kaga dabacsiin weerarada inay ka filaan garoonka aadan cadde Muqdisho ayaa daawo doontaan ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya waxa uu si shuruud la'aan ku aqbalay wada hadal inuu la furo jabhada TPLF ee dagaalka baan kula jirta waxaa kaloo daawo doontaan taliyaha ciidanka oo ka soo baxay furimaha dagaalka ee al-shabaab lagu jiray magaalada Muqdisho ayuu ku soo laabtay haddaba arin ayuu ka hadlay wararka ugu dambeeyay howlgalladaasi ay soo kala faahfaahinaya waa daawo doontaan qodobadaasi wixii soo korayaan ku faahfaahin doona ay wararka arrimaha caalamka ee diblomaasiyadda fadlan haddii aad nooga soo subscribe noo saar gambalkan afuro mana shirgareey saaxiibadii meelkasta joogaana idinkoo kumantiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin aan ku bilaawno gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan ayaa dayac amni ku eedeeyay saraakiisha ugu sareysa booliiska iyo nabad sugidda nisa isagoona shir jiraad ku qabtay maanta magaalada Beledweyne Cali Jeete ayaa sheegay in baabuurta qaraxyada ismidaaminta ay weerarada ka fuliyeen magaalada Beledweyne laga soo gudbiyay boondada Beledweyne ayna geyseen khasaaraha dhimasho in ka badan 30 qofood halka dhaawacyaduna ay marayaan 58 qofood gudoomiyaha Cali Jeete wuxuu si toos ah u eedeeyay taliyayaasha booliiska iyo nabad sugidda wax tallaabo ahna aysan ka qaadin qaraxyada ka dhacay magaalada Beledweyne isagoo dalbaday in dowladda federaalka ay tallaabo arrintaas ay ka qaadaan shakhsiyaadka ku magacaaban nisa iyo sidoo kale booliiska ee Beledweyne gudoomiyaha Cali Jeete ayaa dalbaday in la soo diro xiraalinta iyo guddi baarisa oo markaasi la dabagalo qaraxyadii meesha ka dhacay mas'uuliyadana ay leeyihiin labada sarkaal ee booliiska iyo nabad sugidda oo shaqadoodii ka soo bixi waayay ayna tahay in loo maxkamadeeyo waa dabcan arrin aad u weyn gudoomiyaha gobolka Hiiraan tallaabada uu maanta ka dhawaajiyay gudoomiyaha wuxuu ku celceliyay in tallaabo laga qaado saraakiisha uu ku eedeeyay inay markaasi waajibaadkooda ay gudan waayeen Cali Jeete Cusmaan ayaa ah gudoomiyaha ugu mayalka adag ee gudoomiyaasha maamulada dalka ka jira markii loo eegana waa nin geesi ah oo markaasi naftiisa u huraya dadkiisa ku nool gobolka Hiiraan oo si weyn ula dagaalamaya dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaalada ka socda gobolada Hiiraan oo uu hormuud u yahay Cali Jeete ayaana loo badinaya hadalkiisa inay dhageysan doonaan marka ugu sareysa dowladda federaalka oo in tallaabo ay ka qaadi doonaan taliyaha booliiska iyo kan nabad sugidda ee magaalada Beledweyne maadaama lagu eedeeyay in ay dayaceen shaqadii ammaanka ee loo dirsaday dhinaca kalena haddaan eegno maxaa ka jira in al-shabaab ay qorsheynayaan qaraxyo iyo weeraro toos ah inay ka geystaan gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde Muqdisho wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn baraha bulshada ugu baahiyay wararka la xiriira in dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay qorsheynayaan weeraro ka dhan ah garoonka diyaaradaha qaraxyo oo markaasi ay soo gelin gudaha magaalada Muqdisho hase yeeshee digniinahaas ayaa goortii horeysay UN-ka ay ka digeen in laga feejignaado maadaama khatarahaas ay dhici karaan hase yeeshee waxaa arrintaas ka hadlay wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada oo war la yaab leh ayagoon ka soo saaray wasaaradda gaadiidka iyo maamulka garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa beeniyay qoraal lagu baahiyay baraha bulshada oo lagu sheegay in halis amni ay saaran tahay garoonka ay dhici karaan weeraro argagixiso qoraalka wasaaradda iyo maamulka garoonka aadan cadde ayaa lagu sheegay in qoraalka la wareejinayo baraha bulshada ee ku saabsan amniga garoonka ay tahay been abuur garoonkana ay gacanta ku hayaan idaha amniga iyagoo markaasi loogu dambeynayo qoraalka lagu saxiixay maarayaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa lagu faafiyay baraha bulshada iyo warbaahinada kaas oo lagu sheegay inay soo gaartay xog muujinaysa in ururka al-shabaab ay qorsheynayaan weerar ay ka geystaan garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa sii kordhaya halista amniga caasimadda ka soo wajihi karta al-shabaab oo dagaalo culus ugu socdaan gobolada dalka qaarkood kadib markii ay weerar isdaba ay ka geysteen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaybihii dhexe janalkeena ayaa daawanaysaan saaxiibayaal haddii aad noqon tahay subscribe noo saar oo gambalkan afuro ona sii share gareeya saaxiibadii meelkasta joogaan idinkoo commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Oduwa Yuusuf Raage ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib maalmo oo ku sugnaa furimaha hore ee dagaalka
al-shabaabka loogu soo horjeedo ka socda hiiraan galgaduud iyo sidoo kaleente koonfur galbeed waxaa magaalada muqdisho kusoo laabtay wasiirka gaashaandhiga sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka saraakiishii ugu sareysay militariga Soomaaliya oo jiido hore dagaal ku sugnaa kadib khilaafyo culus oo soo galax galay dhinacyada markaasi dagaalka hogaaminaysa ee beelaha qaarkood xildhibaano isku soo dhaceen sida galgaduud markaasi xildhibaanadii oo ka cishay dagaalkaasi General Odwaan Yuusuf Raagi ayaana durbadiiba kulan uu uga warbixinayay xaaladihii guud ee uu ku soo arkay dagaalada socda ka warbixiyay kulanka ayaa xoog loogu saaray dadaalada dib u xoreynta Soomaaliya ka socda ka jawaabista abaaraha oo gaarida deegaanada la xoreeyay baahinta maamulada adeegyada bulshada xasilinta guud ahaan iyo arrimo kale warrantii taliyaha xoogga dalka Odwaan Yuusuf Raagi ayaa hordhigay wasiirka arrimaha gudaha federaalka Axmed Macalin Fiqi dib u xoreynta howlgaladii markaas ka socday deegaanada iyo markaas deegaanadii gacanta loo qabtana in loo baahan yahay in gurmad la gaarsiiyo taliya Odwaan waxa uu sheegay inay diyaariyeen ciidan gaadiid iyo dhammaanba tashiilaadka kale ee dadka iyo deegaanada lagu hor wareejinayo buri dhibka al-shabaab markaasi laguna gaarsiinayo gargaar iyo dhammaanba adeegyada ay u baahan yihiin isagoo markaasi wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ka dalbaday in ayaalan biyo raashin dawo iyo adeegyo kale loogu diyaar garoobo deegaanada ay halis ku hayaan al-shabaab iyaguna markaasi xoogga dalka ahaana ay damaanad qaadi doonaan gaarsiinta iyo markaasi qaybinta adeegyadaasi wasiirka arrimaha gudaha federaalka Axmed Fiqi ayaa ugu horreyntii ciidamada xoogga dalka ku ammaanay howlgallada dib u xoreynta dalka ka dhanka al-shabaab guulaha laga gaaray iyo markaasi ay sii socdaan howlgallada markaasi lagula jiro al-shabaab wasiirka oo kulankan ka sheegay in wasaaradda oo kaashanaysa hay'adaha gargaarka ay markaasi meeleynayaan isla markaana ay diyaarinayaan qodista ceel biyood raashin qaybin degdeg ah sameynta iskuulo isbitaallo cusub oo leh dhakhaatiir iyo dawo iyo baahiyo markaasi kale ay ka jirta deegaanada markaasi al-shabaabka ay ka baxeen ama ay markaasi weli ay joogaan tabii gabagabada ayaan isla soo gaarna daawadayaal haddii aad nagu cusub tahay haymaamina subscribe karo gambalkan afurtaan una sii shargareysaan saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo kumantiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana wararka arrimaha gobolka waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya ayaa shaacisay inay si shuruud la'aan ah ay ku ogolaanayso waawaanta iyo markaasi dhexdhexaadinta midowga Afrika uu ka dhex wado dowladda Itoobiya ee jabhadaha TPLF oo dagaalka ku dhex maraya waqooyiga waddankaasi Itoobiya sida uu baahiyay xafiiska xiriirka dowladda Itoobiya iyo la taliyaha amniga qaranka Duwaan Xuseen dowladda Itoobiya waxay cadeysay inay diyaar u tahay wadahadal ee la gasho dibadda Tigray dowladda Itoobiya waxay aqbashay martiqaad wadahadalada nabadda kaas oo waafaqsan bariir mowqifkeena mabda'a ee ku saabsan in nabadda lagu xalliyo khilaafka iyo baahida loo qabo wadahadal aan shuruud ku xirnayn ayaa lagu jira qoraalka xukuumadda Itoobiya ka soo baxay midowga Afrika ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya iyo xoogga Tigray ee iska soo horjeeda inay wadahadal markaas nabadeed ku yeeshaan waddanka Koonfur Afrika dhammaadka toddobaadkan kaas oo ujeedku yahay in lagu soo abjaro colaadda markaasi 2 sano jirtay gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Musa Faki Mohamed ayaa qoraal u qoray Depression Gabriel Mikael oo hogaamiyay siyaasadeed ka Tigray iyadoo markaasi labada dhinacba hadda markii ugu horeysay ay aqbaleen inay isfar fariistaan dowladda Itoobiya iyo madaxda gobolka Tigray iyo waqooyiga dalkaas ayaa labaduba sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka wadahadalka oo markaa dhexdhexaad ku yahay midowga Afrika guud ahaan wararkii waaweyn Soomaaliya caalamka kala socoteen daawadayaal waana inta jannada keena haddii aad nagu cusubtaan fadlan haymaamina subscribe galkan afurtaan una sii shargaysaan saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo kumantiga like inoo ribaya aad baad u mahadsantihiin had iyo jeer sida aad markaasi nala socotaan